بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دبادة جنالك إنجنير محمد إبراهيم عمر. عشركي نقدم بيجي waxaan ka soo hadalnay introduction to conjugate. xoogaan ka soo taabanay waxa loo jeedo conjugate iyo waxana anfacayo iyo wuxuu ardayda u anfacayo aan ka soo hadalnay iyo muhiimadiisa aan ka soo sheekeynay. maanta waxaan rabnaa si toos ah inaan ugu dagalno inkastoo aan jeclaa in maaragta aan live ama sharaxaad ardayda ayagoo arkaya aan u sharxo, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan saan ku fahmi doono insha Allah waan soo geli doonaa anagoo si toos ah u sharxi doono oo ardaydana asxaabta ku xiran channelkana ayagana si toos ah ay u daawan doonaan iyadoo la sharxayo ilaa wax walba waxa waaye ardaydu waxay jecel yihiin itaabsi iyadoo la sharxayo soo geli doonaa, laakiin waxaan isku dayeynaa inaan fahmi doono insha Allah. daraad waxaan ka soo sheekeynay in conjugate-ka oo dhiciisa ama introduction-kiisa ka soo sheekeynay. hadda duu ilaahay karaan noqdo waxaan rabnaa inaan ugu dagalno conjugate-keena ama cashirkeena ama slide-keena, balse intaan ugu dagalin waxaan rabaa ardayda ama asxaabta inaan u sheego ama aan ka codsado aan markasta ku celceliyaa ardayda asxaabta ku xiran channelkani waa channel cusub. maanta wuxuu taagan yahay meel dhexoo taagan yahay, weli waxaa loo baahan yahay in channelku uu tago meel sare inuu tago ayaa loo baahan yahay. asxaabtii ardayda way ku mahadsan yihiin channelkan maanta meesha uu gaarsiisan yahay soo gaarsiiyay aad iyo aad u mahadsan yihiin, waan naga mahadcelinaynaa. laakiin channelka weli waxba u sii dhiman, meeshii uu rabay weli ma taagnaa. hadda wuxuu taagan yahay meeshii la rabay oo xoogo ah, waxaa loo baahan yahay inuu sii gaaro meeshii lagu rabay ama the last uu tago loo baahan yahay si asxaabta kalena ayagana u sii gaaraan u sii arkaan. ilaa maanta 10 qof hadii aragto channelkani 10kaas qof ee aragto waxa laga rabaa in ay sii share gareeyaan 10 kale ay sii gaarto 10 kale ay sii gaarto waxa laga yaabaa ayagana inay sii share gareeyaan ay sii gaarto 20 kale inay sii wadaan ay gaarto 100 kale inay sii wadaan ay gaarto 1000 inay sii wadaan milyaamaad ilaa meeshii channelka lagu rabay ay tagaan. marka waan iga mahadcelinaa asxaabtii ardayda. haddana waxaan rajaynaynaa aan hubaa in meeshii lagu talgalay channelka aad sii gaarsii doontaan hadduu ilaahay karaan noqdo. saan maanta wax walba aan u hubo midaan inaad sameey doontiin ilaa maxaa yeelay channelkan wuxuu nii suurtageliyaa in markastoo nii soo deeyo cashiro nii xiisi geliya. marka waxaan idin leeyahay subscribe, share, like intaba dhag noogu sii idinkoo mahadsan. macalinka loo kala kiciyo. okay, haddaan usoo noqdo slide-ka maanta nooshadan wuxuu yahay waa conjugate. horta awalan intaan u gudgalay sharaxaadii waxaan rabaa conjugate maxaa la inaan fahanno. conjugate maxaa la inaan fahanno. waxaa laga yaabaa conjugate-ka inuu naga badbatay, aad maqashay, aad aragtay buugaagta English-ka badanaa uu ku qoran yahay, buugaagta muqarrarka uu ku qoran yahay, meelo kale aad ku aragtay dad afka ka sheega ama macallimiin afka ka sheegay aad maqashay, balse aad ogeen waxa laga wado ama micnaha uu yahay conjugate-ka. aan rabnaa maanta inaan isfahansiino. horta ereyga conjugate waxaa laga wadaa i'raab laga wadaa micnaha i'raabna waxa la waxaan ku qoran hal u dhig micnaha waxaan ku qoran hal u dhig micnaha farac meesha ka imaado i'raab micnaha waxa loo jeedaa ereygan ama subjectigan meesha ka imaado farciisa gaarsii loo jeedaa micnaha i'raab lagu sheegay saas oo micnaha sentence jumla ku qoran jumladana waxa laga rabaa marka in farceeda la gaarsiyo mid kasta oo jumladaas ku jirta farceeda meel ka soo faracdanta farcaas marka waxa la rabaa in la sii gaarsiyo kaas marka waxa loo jeedaa conjugate waxa la i'raab micnaha waxa la sentence kan soo socdo i'raab ku sameey ama conjugate ku sameey i'raab maxaa marka sentence kaasi mid kasta ku jira wuxuu leeyahay i'raab oo leeyahay i'raaba kan yaaba hebel iyo ku siiya hebel. hadda waxaan slide-ka noo shida maanta wuxuu yahay ama aan ku qaado doono wuxuu yahay conjugate-ka first aan ku qaado doonaa. okay, aan ugu galo marka inta qodob aan ka hadli doono waxay tahay waa 1 2 3 4 5 shantan qodob aan rabnaa inaan ka hadalno. shanta qodob maxay yihiin? 1 subjective pronouns. subjective pronoun-yo maxaa tahay adiga? maxaadna qabataa? maxaad noo faa'iideynaysaa? 1 sidoo kale waxaan baran doonaa inta ku jirno conjugate-ka objective pronouns. objective pronouns isagana muxuu yahay? muxuu noo qabtaa? muxuu ka hadlaa? muxuu noo faa'iideeyaa? maxaan kaga faa'iideysan karnaa intaan ku wada jirno conjugate-ka? sidoo kale waxaan qaadan doonaa possessive adjective. possessive adjective isagana muxuu yahay? muxuu ka hadlaa? muxuu noo faa'iideynaa?
maxaan kaga faa'iideysan karnaa intaan ku jirno slide-ka ama conjugate-ka aan ku jirno maxaan kaga faa'iideysan karnaa isagana waan arki doonaa sidoo kale waxaan qaadan doonaa wax loo yaqaano articles idina maxay tahay maxay qabataa maxay ka hadashaa maxaan ka faa'iidi doonaa qodobka ugu dambeeya ee slide-ka noo soo saaro wuxuu yahay auxiliary verbs ama auxiliary muxuu yahay muxuu qabtaa muxuu ka hadlaa muxuu faa'iido noogu yahay intaan ku guda jirno slide-ka ama conjugate-kan shantaas qodob arnaa intaan ku soo noqdo subject pronouns waxaa la yiraahdaa ficil sameeya la yiraahdaa ustaad subject pronouns waxaa la yiraahdaa ficil sameeye waan soo sheegnay subject pronouns waxaa jirta 7 pronouns waxaa jirta 7 pronouns yaa kamid ah I, we, you, they, she, he, it todobadan inta noogu qoran 1 2 3 4 5 6 todobadan oo ugu soo horeys I, you, they, she, he, it intaasi waxaa la lahaa subject pronouns waxaa la pronouns 7 pronouns marka subject waxaa la ficil sameeya la objectna waxaa la ficil gudoomi subject waxaa la ficil sameeye objectna ficil gudoomi marka waxaan leeyahay subject pronouns waxaa la magacuyaal pronouns ereyga pronounsna waxaa la yiraahdaa magacuyaal ereyga pronouns waxaa la yiraahdaa magacuyaal ila subject waxaa loo qeybiyaa labo inuu noqdo subject nouns ama inuu noqdo subject pronouns maxaa la magacuyaal todobadan xabaad aan soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa pronouns nouns ni Allah magac kaliya tusaale ahaan Ali Ahmed Farah Hasan Hussein waa nouns sidoo kale teacher student principal Carol boy Allah waxa kamid yihiin nouns kamid kaas alla marka nouns iyo pronouns kuwaas la kala marka markii lagu dhahayo subject pronouns iyo subject nouns waxaa loo jeedaa sentence kasta wuxuu leeyahay subject ka bilowda wuxuuna ku dhamaadaa object ku dhamaadaa marka subjectiga sentence-ka midka ugu horeeya waxaa la subject la subjectaas marka wuxuu noqon karaa laba noqon karaa bis inuu noqdo mid nouns ah ama inuu noqdo mid pronouns ah objectna sidoo kale wuxuu noqon karaa inuu noqdo object nouns ah ama inuu noqdo object pronouns inuu noqdo labadaas mid waa marka subject pronouns ugu soo waxaan waa todoban pronouns ku baran doonaa I oo laga wado micneed aniga laga wado you oo adiga you maray noqotaa marna adiga qof kaliya noqotaa marna jamci noqotaa micnaheed dad badan xaq joogo ee noqotaa they ayaga she iyada he asaga it waxaa loo isticmaalaa wax aan nooleen loo isticmaalaa shayada aan nooleen loo isticmaalaa wax nool it looma isticmaali karo wax aan nooleen waxaa loo isticmaali karaa it loo isticmaali karaa we anaga intaas dhan maxaa waa todoba xabo waxaa la lahaa pronouns marka waa subject pronouns badanaa sentence-ka markii la sameeynayo ama la dhisaayo todoba midkooda ka bilowdaan ayay ka bilowdaan dhanka other side of a pronouns marka la joogo todoba midkooda ka soo bilowdaan marka nouns la joogane Ali ama teacher ama student ka soo bilaabmaan okay yaana wixii marka subject pronouns sida ugu baxan subject pronouns waxaan ani ficil sameeye oo magacuyaal waaye todobadana pronouns loo yaqaanaa pronouns waxaa loo yaqaanaa todobadana loo yaqaanaa subject pronouns taas ku faahfaahna marka ay object pronouns maxaa la haddii aan soo sheego waxaan dhahay object pronouns waxaa la ficil object waxaa la ficil gudoomi pronouns waa maxaa waa pronouns magacuyaal marka subjectan aya object oo leeyahay tusaale ahaan waxaan dhahay subjectii wuxuu ii noqday ayo ii noqday tusaale ahaan subjectii wuxuu ii noqday ayo ii noqday jumladii waan waday waxaan rabaa in jumle kale oo objectiis aan ugu dhigo pronouns na ugu dhigo bis fiiriya subjectiga ayaan ku bilaabay oo pronoun waa waday auxiliary keenay verb keenay objectigna waxaan rabaa inaan ugu dhigo pronoun inaan ugu dhigo marka ayada ma soo celinaa mise waa bedelaha hasa marka object pronouns markii lagu sheegay taas waa macna waxa laga wadaa tusaale ahaan waxaa ku dhahay waxaan subject waxa soo qaatay auxiliary keenay verb keenay ing ku daray objectiga ma ayadan soo celinaa mise waa bedelaha aad ma soo celinay ila ay subject ay ahayd hadan maxaa laga rabaa in object laga rabaa marka object laga rabo waxa waaye waa inaan keenaa ayada bedelkeed waa inaan keenaa ay waa subject objected waxay noqonay me ee noqonay marka tusaale ahaan waxaan dhahay tusaale ahaan she is killing me she is killing me she yabay waa subject pronouns waa sax auxiliary is wadataa verb oo kill wadataa ing lagu daray objected yabay me waa
marka midan object wuxuu noo cadeynaa object pronouns wuxuu noo cadeynaa todobada xabo oo subject pronouns noo aha ayaa waxay leeyihiin object pronouns ay leeyihiin sida slide kaaga muuqato me you kusoo noqonay they them isku bedelay she her isku bedelay he him isku bedelay it isku bedelay وين آسي وسك بدلي كوانا مكو حلوي قانا كوانا اسكو قلدي مركا كوانا وا subject I you they she he it كوية waxa waaye subject waa كوانا maxay object waa marka su'aalaha markii la weydiino waxa lagu dhahaa I object check me waa you object check waa you la kusoo noqonay bis they object check them she object check her he object check him it object check it lewa we object check us kuwana alla subject pronouns kuwana alla object pronouns waxa ku dhahay markii tusaalahan subject uu yahay oo pronouns uu yahay object pronouns kuwana la keenaa macna oo himi ay isku bedelay me you isku bedelay you they them she her he him it we us isku bedelay kuwana alla subject pronouns kuwana alla object pronouns taasoo ku fahmay labadaas qodob waan fahanay qodobka saddexaad aan soo gudubno oo ah possessive adjective waxa la sifo lahaansho la sifo lahaansho possessive maxaa waa lahaansho waa adjective na waa sifo xalina marka possessive adjective waxa laga wadaa sifo lahaansho laga wadaa macna sifo lahaansho laga wadaa marka maxay tahay iyadana sifo lahaanshaha I waxaan waa subject pronouns I object wuxuu noqonaa me noqonaa possessive adjective wuxuu noqonaa my noqonaa tusaale ahaan marka isticmaalayo kale possessive adjective waxa loo isticmaalaa sifo lahaansho wax adiga aan leedahay ama wax dadkaas ay leeyihiin ama wax iyada ay leedahay ama wax anaga aan leenahay ama wax isaga uu leeyahay ama wax adiga aan leedahay marka u isticmaalaysid waxa la isticmaalaa possessive adjective la isticmaalaa ilaa waxa ka dareemi kartaa qodobka magaciisa ka dareemi kartaa ama ciwaanka magaciisa ka dareemi kartaa ilaa ciwaanka wuxuu ahaa possessive adjective oo ahaa waxaan dhahnay waa sifo lahaansho waan ereyga possessive waxa waaye lahaansho waa marka maadaama ereyga uu yahay ama qodobka ama ciwaanka meesha uu yaalo uu yahay lahaansho uu yahay wax aan ka hadlaynin oo qofkan uu leeyahay waa wax isaga uu leeyahay waa marka waxaan leenahay possessive adjective-ku sifo lahaanshuhu wuxuu ka hadlaa guud ahaanba in shaygan adiga ama aniga aan leeyahay ama isaga uu leeyahay ama ayaga ay leeyihiin ama idinka aad leedihiin ama anaga aan leenahay ama iyada ay leedahay ayuu ka hadlaa marka tusaale ahaan waxaan dhahay my car gaarigayga is been taken waxaa qaadanaya by the man ninkaan dhahay waxaan u isticmaalay tusaale past force oo tennis koowaad u isticmaalay waxaan dhahay my car gaarigayga is been taken waxaa qaadanaya by the man ninka qaadanaya waan dhahay maxaa waaye tennis caadi maana waa past force waa oo tennis koowaad waa present continuous in a past force waa marka waxa u isticmaalay marka waxa ku cadeynaa bis past force waxa soo qaatay muhiimadeed ma in past force muhiimadeed waxa waaye maydan ina ogaado wixii qabato waxaan dhahay maydan iyo your iyo their iyo hers iyo his iyo it is iyo our iyo waxay noo qabtaan wax anaga aan leenahay oo lahaansho ka hadlaan bis wax isaga uu leeyahay wax adiga aan leedahay wax iyada ay leedahay wax iyada ay leedahay wax anaga aan leenahay wax idinka aan leedahay bis ay ka hadashaa ilaa waxa la possessive adjective waa sifo lahaansho okay waxa la marka I was subject object maxay noqonay me possessive adjective maxay noqonay my very you subject pronoun why object pronoun maxay noqonay you isku soo bedelay bis possessive adjective maxay isku bedelay your car your mouth your jet your tree your house waxaasna maxaa waa your waa macna lahaansho loo isticmaalaa okay they subject why object maxay noqonay them isku bedelaynaanay ay subject they subject waxaan subject waaye object wuxuu isku bedelay them possessive adjective wuxuu isku bedelay their isku bedelay okay she was subject object wuxuu isku bedelay her possessive wuxuu isku bedelay hers car okay he was subject object wuxuu isku bedelay him possessive adjective wuxuu isku bedelay his car his house his clothes his watch okay it subject waaye object wuxuu isku bedelay it isku bedelay possessive adjective it is Allah apostrophe s algu daraa macna it is we were subject object isku bedelay as possessive adjective our teacher our mother
our father, our children, our sister, حسنا محاوي our brother, حسنا محاوي our principal, محاوي وحلا إن شاء الله استعمالها معنا. okay سدحت خطب وين فهني subject pronouns مع الله وسوف فهني object pronouns مع الله وسوف فهني possessive adjective مع الله وسوف فهني قدب أفراد وحوي هاي articles مع الله waxaa jirto 3 articles aa jirto waxa kamid ah baa kamid ah a kamid ah ana kamid ah articles laba loo qol qaadaa inuu noqdo articles in articles iyo articles laba loo qol qaadaa da waa articles waa in articles waa okay da a an tasn maxay articles waa auxiliary verbs waa kana am is are do does did we shall have been has been was were way si badan yihiin auxiliary verbs way badan yihiin laakiin inta ka soo qaadanay inta kale waan qaadan doonaa waan fahmi doonaa marka conjugate-ka first-kiisa aan baranay ordhaciisa aan baranay way soo socdaan sidoo kale waxa jiri doona i'raab jiri doonto marka articles-ka waxaan shantan qodob way 1 2 3 4 5 waa marka marba ardayda waxa loo sheegaa marba hadii articles ama conjugate oo lugta la soo geliyay casharka waa si adkaana conjugate-ka wuu dhib badan yahay marna wuu fudud yahay markuu dhib badan yahay waxa waaye markii ardayda misaa saxaabta ay practice waayaan ay ku celceli waayaan markuu fudud yahay waxa markii saxaabta ama macallimiinta ay sharaxaan ama janaalka uu sharaxo marka ku celcelisid dib raaca ku sameeysid oo ku fudud yahay ku sahlan yahay si toos ah marka ugu raaxaysan kartaa waxna mar hadaa fahantin oo ku celcelisid inta ka sii dambeeyso waa ku raaxaysanay balse kood hadaa fahmeysi hadaa fahantaan si raad raacaysid kidib waxa way ku mar raaxaysan kartid wiligaaba oo ku dhiba marka asxaabta iyo ardayda waxa loo sheegaa janaalka markasta wuxuu ku suurtageliyaa sida ardayda ku qanci lahaayeen ee ku fahmi lahaayeen maadadan Englishka ah hadii ahaan la dhanka grammarka iyo hadii ahaan la dhanka tenseska iyo hadii ahaan la dhanka practicalka ama dhanka casharada conversationka ayaa idiga ahaan la dhanka wordiska intaas ba ardayda janaalka wuu ku saacidaa marka ardayda waxa loo sheegaa hadii janaalku intaas niga saacido idinku waxaan ilaga rabaa markasta inaad dadaashaan dadaalkiin aan laba jibaartaan hadaa dadaali jirtay dadaalkaada aad sii wadid hadaa dadaalina hadda dadaalka aad sii oo bilaawid Janice haysta you have still chance Janice haysta karto make everything you need marka waxa haysta Janice aad u fara badan oo buux haysta oo adiga wax walba aad ku sameeysan kartid marka isku day inaad adiga dadaasho dadaalkaaga aad laba jibaartid aad ku celcelisid anagana markasta ama janaalka wuxuu markasta ku suurtageliyaa wax walba adiga aad rabtid ama daneynaysid oo ku saabsan maadadan Englishka inuu ka saacidi doono ama ka caawin doono garab weyn aad kaga heli doontid laakiin hadii maanta aad leedahay janaalka kaliisa wax ka hela anigana ma dadaalay janaalku kuma saacidi karo janaalku wuxuu saacidi karaa ardayga ama asxaabta kaliya ee markasta markuu janaalka saacido sagana raad raac ku sameeya ku celceliya practice casharada janaalka uu bixiyo ama macallimiinta ay bixiyaan marka ardayda ama saxaabta waxa loo sheegaa inay dadaalaan markasta ku celceliyaan waana sheegnaa waxaan dhaanay hadii su'aal aad qabtid qayb commentiga noo soo comment gareey cabashada ama su'aasha adiga qabtid ama cashirka aad rabtid ama tenniska aad rabtid in lagu revision gareeyo ama practical ama cashirka ama wordiska aad rabtid in lagu revision gareeyo fadlan qaybta commentiga nala soo wadaag nagu soo comment gareey saan anagana u aragno kadibna aan kaaga soo jawaab celino si degdeg ah marka asxaabta waxa loo sheegaa waxaad qarsato way ku qarsadaan Allah qof xishooda iyo qof islaweena waxna ma bartaan ardayga uu baahan yahay arday markasta uu baahan yahay wuxuu ka baahan yahay dhanka waxbarashada baahidiisna wuxuu ku dhalin karaa ama baahida kaga bixin karaa in markasta uu sameeyo meelaha waxbarashada taalo inuu tago uu raadiyo janaalada inuu raadiyo salahan janaalkani uu ku duban yahay janaalada kale ilaa janaalkan wuxuu bixiyaa maadada oo English ama wuxuu bixiyaa dhanka waxbarasho ka hadlaa simbirna meesha waxbarasho laga hadlay meesha waxbarasho laga hadlaynin way kala duwan tahay janaaladu isku mid maahan janaaladu waxay bixiyaan barnaamijyo kale ama information kale janaalna wuxuu bixiyaa dhanka education waxbarashada hadii aan la maadooyinka scientific iyo hadii aan la maadooyinka Englishka iyo hadii aan la maadooyinka lagu barto level university bixiyaan marka janaaladaas la raadiyaa adiga ku suurtageliya in markasta
garaadkaaga maanta aad taagantahay inaad ka badasho oo garaad kale wax kusii kordhiso marka asxaabta waxaa loo sheegaa markasta noqo qof markasta ku socda wadada waxbarashada noqona qof markasta dadaala maadooyinka uu barto haddii aan lahayn maadooyin scientific haddii aan lahayn maadooyin programming ama universal ama haddii aan lahayn maadooyinka Englishka markasta waxaa laga rabaa waxa adiga aad daneynaysid education inaad raadisid marka asxaabta waxaa loo sheegaa janaalkan in markasta wuxuu ku suurtageliyaa in wax walba adiga aad rabto inuu ku soo geliyo kuna ku soo deeyo haddii maanta wax adiga aad fahansaneen ama ay jiraan casharo aad fahmi weysay ama ay jiraan tennis aad fahmi weysay ama ay jiraan practice aad fahmi weysay ama grammar aad fahmi weysay fadlan waxaan kaa codsanaynaa in qaybta commentiga nagu soo comment gareyso wax cabashadaana qaybta aan ugu reebto saan anagana u aragno kadibna aan u sameeyno farcilin ama jawaab cilin aan u sameeyno ilaa anaga maanta danteenu waxay tahay in ardayda maanta nagu xiran ama asxaabta nagu xiran waxa naga sugayaan cashiro practical iyo grammar naga sugayaan waxa ayaga naga sugayaan in aan u soo deeno waxa ayaga cilad haysatay in aan ka cilad bixino aan ka qancina jecelna macna laakiin haddii aan arki weyna arday ama asxaab nagu soo commentiga nagu soo comment gareeyaan su'aalaha ay qabaan anaga marka qayb jalan ahaan waxa isleenahay ardaydu waxaan u fiirinaynaa in casharada ay fahmeen si wanaagsan ee nolol socdaan marka haddii wax walba aad fahantina anaga diyaar u ah ma janaalka diyaar u yahay in markasta ku saacido nagu soo jawaab celi qaybta commentiga nagu soo cabashadaada ama nagu soo comment gareey marka asxaabta dadaala ugu gaaraa la hela dadaalo maadooyinka la lagu dadaalo maadadana ha lagu dadaalo janaalkani markasta waxa adiga rabto ku soo deena grammar wuu ka dhisi doonaa practice wuu ka dhisi doonaa tense wuu ka dhisi doonaa every subject adiga aad doonayso ku saabsan maadada ama everyone aad doonayso maadada ku saabsan janaalku wuu ka saaciidi doonaa dawlaha karaan noqdo macallimiin khibrad u leh maadooyinka ku jiro marka asxaabta waxaa loo sheegaa in janaalkani ay si share gareeyaan subscribe inoo saaraan like inoo saaraan ilaa maanta qofka maanta wax wanaagsan ku soo daayaan qofka maanta hal eray ku baro wuxuu ka mudan yahay intaas oo qadarin oo ka mudan yahay wax walba u baahan yahay waa inaad u sameeysaa maanta waxaa laga yaabaa in barnaamijyo kale adiga ku xiran tahay oo maanta intaas oo shay u marsiiso haddii aan la qaybta share gareenta haddii aan la qaybta subscribe-ka haddii aan la qaybta like ina u saartid ka dhista laga yaabaa laakiin wiligaabo waxaa laga yaabaa inaad ka dhisan waxyaabaha wanaagsan ee la soo geliyo marka waxaan ku sheegaa in janaalada oo casharada oo laga barto inaad markasta ku xirnaatid laga baahan yahay qaasatan janaalkani markasta wuxuu ka saaciidi doonaa qaybta tensiska wuxuu ka saaciidi doonaa qaybta practicalka wuxuu ka saaciidi doonaa qaybta grammarka maanta dadaad waxaan rabaa inaan barto Englishku haddaan aqoon grammarkiisa wuxuu ku taray ma laha wax walba xilin grammar leeyahay marka waxa ku roon waxaan inaad iska barato inaad ogtahay ama taqaanid grammarka saxda ama asalkiisa grammarka hada taqaanid kadib waxa tahay qof banaankiis ku dhacaya tahay laakiin hada dhahdo waa iska baranaa barasho wixii taraysa ma laha ilaa waxa laga baahan waxa markaa baranaysid inaad ogaatid asalkiisa iyo dhamaadkiisa inaad ogaataa jeceshahay marka maadadan Englishna daarad inaad baratid waa inaad ogaataa ama waa inaad barataa asalkiisa iyo dhamaadkiisa asalkiisa waa grammar dhamaadkiisa waa grammar marka waxa laga rabaa wax walba maadadan hoos imaada inaad iska dhistid maadooyin kale ba inaad ayagana wixii hoos imaada wixii ku dhamaadaan wixii ka bilaawda iska dhisa laga rabaa qaasada maadadan ardayda masaxaabta daneynaysa in iska dhiskana la rajeena waxaan laga dhisi doonaa janaalkana looga dhisi doonaa laakiin asxaabta ardayda waxaa loo sheegaa in codsigeena naga aqbalaan saa idinka codsigeena naga aqbalno please idinkana codsigeena naga aqbala maalin kaste cashar aan qaadano waxaan soo gelinaa ugu dambeyn ama gabagabada waxaan soo gelinaa in ardayda codsi aan usoo aan banaanka usoo dhigno aan dhahno codsigaasi hana laga aqbalo ardayda qaarna naga aqbaleen qaarna weli ay naga aqbaleen laakiin aan rajeynayno in maalmaha soo aadan ay naga aqbali doonaan codsigeena banaanka aan u dhignay marka waxa ardayda waxa loo sheegaa markasta lagu celcelinaa in janaalku uu yahay janaal cusub oo u baahan yahay maanta wuxuu taagan yahay meel dhexu taagan yahay janaalkana wuxuu rabaa inuu sii tago meel sare inuu tago rabaa oo janaalada kale oo la tartamo janaalo badan oo la tartamooya marka asxaabta ama ardayda ku xir waxa loo sheegaa codsigeena naga aqbaleen dadka ama asxaabta ama ardayda codsigeena naga aqbashina boqolkiiba boqol waan u mahadcelinaynaa qaabkay naga aqbaleen ilaa waxa anaga soo deelin waxay tahay waa wax education ama waxbarasho ah marka inta naga aqbalina ayagana boqolkiiba boqol waa u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo aadan ayagana in naga aqbali doonaan mar haddii asxaab aqbashina ama arday aqbashay inta kalena waxaa la rajaynayaa in ayagana aqbali doonaan si ardaydan wadada raacin ayagana inay raaci doonaan la rajaynaa marka asxaabta ama ardayda waxaan leenahay hala dadaalo jiifka laga kaco markasta noqo qof dadaala
dadaalaa wuu gaaraa lahay haddaa iska jiifatid way kula jiifaneen haddaa soo jeedina way kula soo jeedeen marka mar kaste ahow qof meel kasta iska dhisa arday daaliyaan waa wala baahan yahay waxa laga baahan yahay dhanka waxbarashada laga baahan yahay arday ma dhargo arday waxbarasho kama dhargo mar kasta wuxuu rabaa wax walba inuu sii ogaado macnaha asalkeeda intee ka imaatay maxaa laga faa'iidaa maxaan ka faa'iidaa inuu raadiyo jecel yahay marka asxaabtu waa mahadsantihiin